ير إنه بدون تلقى دورنا بدون تو أبدا ما بل إسكو العليا كدبنا إن شاء الله دواني للجيدا بالشدة عالمك لمان ونيل الجيدا باقي إن شاء الله إن لقيسو جواب رجينا مام إن شاء الله مام waa samafale afraxow guura siyaad oo loo yaqaano Asad Joy waxa uu maanta qoysas ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne ee ku nool xariyaha barakacayaasha ee Ceel Jaalle uu gaarsiiyay deeq kooban lacag markaneeco bacaha dadka ay guryaha saartaan iyo 4 booyad oo biyo macaan ah oo laga keenay deegaanka Eelgaal si dadka deegaanka ku nool ee barakacayaasha ah ay u cabaan dadkii maanta deeqda kala duwan uu gaarsiiyay samafale Asad Joy ayaa ka koobnaa waayeelo indhoolayaal caruur xanuunsanaya iyo dad kale oo danyar ah oo wajiyadooda laga dheehan karay duruufo kala duwan kuwa oo kamid ah dhamaantood dadkii ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle Beledweyne uu ka sameeyay oo gaaray deegaanka Ceel Jaalle qoysaskii maanta uu gurmadiyay kala duwanaa ee ka koobnaa lacagta markaneecada bacaha dadka ay hoyga ka dhigtaan iyo waliba biyaha uu gaarsiiyay samafale afraxow guura siyaad Asad oo hadlay ayaa u mahad celiyay Asad iyo dhammaan dhalintii kale ee muxsiniinta ahaa ee soo dhiibtay lacagta maanta dadka wax lagu gaarsiiyay waxayna kale ay dalbadeen in deeqyaha noocan oo kale ah iyo kuwa kale oo ka sii ballaaran loo sii laba jibaaro mahadsantiin khayr Allah nisi ilaahay alla idin barakeeyo meel kastoo martiin ba amaan Allah amaan rasuul ilaahay anigu amaana geliyo aniga waxaan ahay maamo xanuunsan oo difeetar dheef la'aan ay kula dhacday saas naqashka hadda saas ugu xiran oo fadhiisan kari alxamdulillah rabbil caalamiin waa idinku mahad celina mahadaas ilaahay ii keenay idinkana waa idinka mahad celina khayr iyo baraka Allah idin siiyo anna Allah ii barakeeyo ka badan Allah idin soo dhiibo waxa la yiraahdaa maan ramaasa la yiraahdaa anigoo qof curyaan oo indhahaas ewerka oo hadda ertaan hadda bishaan lagu dhex jiro bishaan dhexdeeda la igu soo fiiqay oo fiiqin xabaay hadda macnaha waxa iga tari waysay oo nafqadeediina aan sii haysanin aan gurigeena ka soo barakacay buushkin deganaay aan iska rafaadsanahay biyaha hadda ertaan oo waxba aan haysano biyaha hataa hadda aan helnay shalay iyo maanta aan helo hataa waxaan ku dhaqana dhar iyo waxaan ku qabaysana waxna aan wayni oo hadda ertaan hadda walaalahayna ay inoo yimideen oo hadda saasna laga arko halahan siyeeriyaha iyo kistaan lacagta iyo bacdaan aan ka helnay wiilashaan dhalinyaradana ugu mahad celinayna ilaahay macnaha ayagana ugu naxariisto sidan u soo baxna waa arko hayseen wax aan haysana ma laha hataa guriga qoryo aan soo waxaan ku dadana male aday ducaqabo dhankaan Allah nuur asaare ay nasiyeen haddana alxamdulillah waxaan u baahanahay intaan ku noolaanay intaan xiranay intaan inta u baahanahay wax kastan aga baahanahay alxamdulillah rabbil caalamiin wax gacantayna ku jiro inta noo yimid ilaahay ugu gargaarto nuur asaare labada cunugoo timida nuur Allah asaaro wadambooda Allah cafiyo ilaahay idin rasuulka farligiisa ونقول الحمد لله نور الله نصير قير الله نصير قير رجينا إن إلهي دتكينا إلهي عدو إذا كقبته يا ريال بعير حد يجي عنك نجساري بيا ونوك العق والنصير نور الله أصار أنا جوا ماشان قال الجوب وعنق بكان عن وقته أود ما أردت أن طلب أن كوجست إسبتال واواي تبر إسبتال أن كوجي واواي بابور ما هاستو وحن أنا ما هاستو أنسيستو أود أن واي واي يجريني عنقال ويرفيو باي هذانا سالس يقول نقضي وقت إلهي وحن كدا وقلب وجرن وحن هاستنا ما جرت بابور لما هاستو أنت بابور صار إسبتال مكعيو ولا له مجرمناي أود أن كوك عن واي بين وكصاب حبر كعن بولكي أكصاب حبرتنا فديا مرضي قناعة يبعدي يوحول عقه وأنا لو سوق بيسي مجن الله مجن رسول ما هسين ويشت أنا يلا مجن الله مجن رسول إلهي محن أكبري إن دعنتود إلهي وحسن سوق جل إن إلهي عدو كقبت أن إلهي أكبري هو بيها ساكت وحن ورور وحار واسبو حار ساكت أنا يابنا بيلوش بواسط لركي حار كان كتلقي ما هذا الله ما هذا إلهي آخرية أدون بكر الله أكبر آمين لا شيء أي كان سداد وحسن الله أكله كل آمين إلهي وحسن أسير آمين إلهي وحنا أنا ورثيه آمين 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 إله أنا ورث غير خبي إلهي أنا ورثيه آمين هاي آمين إله أنا ورث جلع سنه نعم إلهي وحسن أنا ورثيه إن شاء الله هي هذا عن الإله يعني عندها سفيان أرجع سفيان إن شاء الله
هذا إذن نقينا gunti iyo gabagabadii samafale afruxuu gura siyaad asad oo hadlay ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay noocyada deeqaha maanta samafalka ah ee uu gaarsiiyay dadkii ka barakacay fatahaada webiga Shabeelle Beledweyne uu ka geystay ee deegaansaday xeryaha qaxootiga ee ku yaala deegaanka Ceel Jaalle waxa uu dhammaan dadka muxsiniinta ah iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ugu baaqay in dadka reer Hiiraan ee fatahaada saameynta ay ku yeelatay gurmadyo degdeg ah ay la soo gaaraan afraxo guura saakin waxaan imaanay duleedka Ceel Jaalle qaasatan kaamka quraca qaasatan imaanay waxa meeshan ka jira waa xaalad aad iyo aad aan la dheelsan kalina meeshan ka jirto ummadii soo barakacday dadkii soo barakacay awal iyagoo barakacayaal si ahay haddana mar labaad soo barakacayna meeshan imaadeen xaaladda ka jirta ee nololeed meeshan waa xaalad serious ah oo xaqiiqo ah waa wixii hore maxaa waa la iskala tagay waa meeshan xaaladan ku arkay waa xaalad aan caadi ahayn waxa ku nool dhammaan dad baahi gaar badan qabo indhoolayaal ha u badnaadaan caruur xanuunsan oo weli aan wax gargaar aan helin dadku waa u jeedaan xataa guryahoodii qaar baca ma saarno xataa bacaha roobka ka galaan ma awoodaan wax soo haya arka waa u jeedaan roob waaye xaaladda dhabta haddaa maqli jirteen xaalad dhaba dhacda haddaa maqli jirteen meeshaana ka jirtaa xaaladda waxaan marnaba indhaha jeclaysan karina meeshan ka jiro waa yeelo iyagaba u baahnaa in la qaado la xanaaneeyo oo haddana maanta aan haysanin wixii lagu xataa galaas caana wixii lagu siin lahaa haddana aan haysanina meeshaan maanta ku aragnay alxamdulilah annaga waa soo gaarsiinay waxaan awoodna waa soo gaarsiinay laakiin waa naga badan tahay dadaalka annaga waa naga badan yahay xoog badan dadaal badan gurmud badan ay u baahan yihiin على كل حال أنا وإذن سوق جرسي دتك ماشان كجرو وادتك برنا ku janna tagi lahaydeen hadaa samafal wanaagsan u sameeysan hadii kana lagu naar tagi lahaa because marxaladan qofkii maanta daawana oo dameer leh ma garan karo mana wuxuu uga aamusa ma garan karo insha Allah waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay dhibta ka kor qaado dhibtaan Ilaaha keenay insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo bari aniga kulli wax kale ku hadla ma laha maanta waa xaaladeeda serious waa awal waaba dad maxaan u tagay masha Allah biyo bas u baahana u tagay laakiin hadda waxa uma dad noloshiba aan koow xataa aan hayna koow oo biyo dhaamis iska daaya xataa aan hayna meel roobka ugu gambadan hayna firaash ku seexdaan guriyoodu waa u jeeda Ilaahay idinku dhaarshay baakada saaran baakad ma roob ma celiso wax ma celiso bulshada caalamka ummadda Soomaaliyeed dadka muxsiniinta ee sadaqada la baxo waxaan u rajaynaa meeshan maxaa la dhahaa quraca la dhahaa waa duleedka Ceel Jaalle waxaan u rajaynaa insha Allah ta'ala in si degdeg ah baaqooda ugu soo jawaabaan maanta waxaan soo gaarsiinaa deeq ka kooban biyo lacag sisiiri iyo bacaha roobka laga gala deeq ka kooban maanta soo gaarsiinay laakiin kuma filno boqolkiiba hal xataa ma dhigi karna baahidooda dabooshan intaan keenna annaga boqolkiiba hal baahidooda dabooshan inaan dhahayna ma filno dadkan gurmad qaran u baahan yihiin gurmad qaran bilaa calayk waa idin bariya mar koowaad mar labaad dhalinyarooy dadka ganacsatada gobolkan joogay maamulka beesha caalamka hay'adaha kulli waxaan ka codsanaa ummad ka darana maanta loo imaan lahay la soo gargaari lahay ma jirto fadhiga ka kaca insha Allah ta'ala aan isku ihsaan falno soo Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu ihsaan fal waa Maxamed Ibraahim Siyaad telefishinka caalamiga ah ee Hiiraan Beledweyne